Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. inaan ku soo dhaweeyo inaan ka inoogu furi doona aayadaha quraanka oo la ilaaha Ridwaan Maxamed tudana soo isara soo ugu furaayada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. رضوان أبو معتزين هاي وحنا نقول ترجعي آياتها القرآن كينا نهذا بعد الكهور بالعلم سيدا كله مدرسة وحنا نقول دونا وزير كبليير تي سبورتيغا وزير إبراهيم عبد القادر هالسورة ويسقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفيعتي dhammaan dhalinyarada kala duwan ee dowladda deegaanka Soomaalida marti sharafta kala duwan mas'uuliyiinta dhalinyarada hal abuurka si guud waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib magaca dhalinyaro run ahaantii waa magac mug weyn wuxuu qaadaa cid walba oo da u dhaxaysa da'da ama 15 ilaa 40 da'da u dhaxaysa u qaadaa dadka inta da'da ku jira waxaa laga helaa nooc walba waxaa laga helaa mid fariida waxaa laga helaa mid doqona waxaa laga helaa mid hal abuura waxaa laga helaa mid aan hal abuura ahayn waxaa laga helaa mid aqoonyahana waxaa laga helaa mid jaahila waa da aad cajiib u ah oo waxa weeyaan qof walba uu soo maro waxaan filayaa dadka halkan jooga inuuna ku jirin wax da'da dhaafsan waayo anagu ka xafiis ahaan dadkaan maamulo age buu ku xidhan yahay qofka hadduu cirro yeesho ma maamulo meelo kale laga maamulaa dhalinyarada marka si guud waxaan kula dardaarmaya deegaankan caawa barnaamijkan u fadhino maadaamuu yahay hal abuur iyo hibo cid gaar u leh ay soo bandhigayso deegaankeennan ama deegaanka Soomaalida markii la yiraahdo waxa uu yahay hooy dadka hal abuurka ah markaad u fiirsato dadkii hal abuurayaasha ah ee taariikhda leh ee geyiga Soomaalida taariikhda ku leh
inta badan hadday doonaan ha ka hayaamaan oo halkan ha ka tagaan laakiin waxay ku dhasheen deegaanka markaan tusaale soo qaadano sayid maxamed cabdulla xasan abwaan qaryan doodaan abwaan camaje abwaanadii kala duwan ee Soomaalida intooda badan abwaan singub inta badan hal abuurku deegaanka uu ka soo jeeda I think inuu ka soo jeedo yaxyana inuu deegaanka ka soo jeedo oo una marti ku ahayn sambil marka deegaankani wuxuu mar walba ku faanaa dadka hal abuurka annaguna waxaan mar walba soo dhaweynaynaa dhalinyaro fara badan oo dhalinyarta iyada deegaanka ah oo ahayn kaliya dhalinyarada jigjiga ee laakiin guud ahaan deegaanka ah ba waxay isku soo abaabulayaan barnaamijyo kala duwan inay ka shaqeeyaan kuwa ka shaqeynaya mutadawacnimo oo dadkooda kaalmeynaya kuwa curis oo hal abuurkii ururinaya kuwa ka shaqeynaya dhalinyarada imika tusaale ahaan horseed oo kale ka shaqeynaya inay filimaan sameeyaan ay ka fariimo ku gudbinayaan dhalinyarada saaymo oo mutadawiciin oo dadkooda tabarta daran soo kobcinaya dhalinyarada curis mar walba xafiiskan wuxuu u aasaasan yahay idin sheegaya oo albaabadiisu u furan yihiin dhalinyarada waxa kale oo dardaaraniga marka dhalinyaro mar walba aragtida caafimaadka qabta waan soo dhaweynaynaa barnaamijyo noocan oo kale inaad qabsataanna waan soo dhaweynaynaa sidaan kan idinku taageerayno yaan kuwa kale fara badan inaad qabsataanna idinku taageeraynaa laakiin idinka fariintan idin dhiibaya waxay tahay dhalinyarada deegaanku intiinan iyo in kale oo fara badan oo caawin la joogin ayaa waxay u yihiin sawir ama muuqaal haddaynu inteenan muuqaalka dhalinyarada ka xumayno totally muuqaalka dhalinyarada wuu xumaanaya haddaynu inteenu ku talagalnaa dhalinyarada deegaanka qurxino oo qurux badnaanaya dhalinyarada deegaanka muuqaalkeedu hadda ka hor wixii jigjiga ka dhacay ee deegaankeena meelo ka mid ah ka dhacay dhalinyaradeena in la abaabulay magac loo sameeyay barnaamij kale la dhaxgeliyay waxay noqotay inuu sawir khaldan inaga baxo sax Soomaa sawir khaldan baa baxay sawirkii wadooyinkii lagu tirtirayay wada ka mid ah tan inay tahay iyo wada kale oo fara badan oo qaadi doontaan inay tahay baan filayaa inaad muuqaalkii xumaaya deegaankeena laga bixiyay inaad tirtirtaan waa idinka rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo ta kale dhalinyarada deegaanka fariin gaar ah u diraya waxa inta badan dhalinyarada waan rajaynaya barnaamijkiina waa idin furay fariinta halkan aan rabay inaan uga faa'iideysto anagu xafiis ahaan idin soo gudbinayno dhalinyarada deegaanka waxaan u haynaa fursado ay tahay inay ka faa'iideystaan waxaan mar walba u jajabanahay xafiiskana u fadhina inaan idin adeegno da'dan idin sheegay kaliya aan u adeegnaa da'daas wax walba ay rabaan oo xilligaas suurtagal ah yaan u fulinaa waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaad ka faa'iideysan doontaan fursado fara badan oo xafiisku idin diyaariyay waxaan jecelahay sida walaalkeen Yaxye oo soo bandhigaya hal abuurkiisa in la helo shakhsiyaad deegaankeena ah oo iyagana soo bandhiga hal abuurkooda waxaan ka rabnaa naadiyada hadda aan magac dhabayay inay soo saaraan dadka talentiga ah waxaan idinka sameyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijyo TV-ga deegaankeena aad ku soo bandhigtaan talentigiina hal abuurkiina aan anagu waliba fadhiga hawada shubayno oo rabnay inaad si firiya uga faa'iideysataan hawadaas oo u isticmaashaan si aad dibadina u soo bandhigtaan hal shay waan idinka dardaarmaya dhalinyaro qabiil ma tihidin waxaad tihiin Soomaali jinsigiinu waa Soomaali mid walba oo Soomaaliya jinsiyad wadaagtaan wadamada baa xad leh laakiin jinsigu xad ma leh qof walba oo Soomaaliya waa walaalka deegaanku dooni ha noqdo laakiin Soomaalinimada dhexdeeda dhalinyaradu ma aha inay aqbasho wax qabiil la yiraahdo qabiil ma yihi anigu idinkuna qabiil inaad noqotaan ma aha waxyaalaha soo baxaya inaan tirtiro dhammaanteen inaga laynaga rabaa waxaan idinka codsanayaa inaan la halgalno waxyaalaha qurunka ah iyo waxyaalaha foolfoosha xun ee ay ka shaqeynayaan dad shakhsiyaad ah oo dana gaar ah leh ay ka shaqeynayaan inaan dhammaanteen la wada halgalno
waxaan nahay keliya Soomaali waxaan anigu ku faanayaa identity-gayga ama jinsiyadayda Soomaalinimada ah meel kale ma rabo sidoo walaalkeen iyo martida kale la socotay waxaan leeyahay deegaanku waa deegaankaagii soo bandhig maanta keliya ma berina wax kale ha ka soo maaxdo kaalay soo bandhig saadaba wax kale ha ka soo maaxdo kaalay soo bandhig deegaanku waa deegaankaagii sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay ahna wasiirka ku-xigeenka xafiiska tarbiyada ciyaaraha أحمد حسن إيمان ويسوون الديار دينا إنه آخر لا تنكسع بين العيال سيوكم والأرضاهم مع السنين أبدأ أنكم على العلمية وسيكون وأنا مع السنة هاي كل ما هدي وسيكون هذا ما شوي بفرنت هاي كابتن تعايل مددالو iyo wax walba waxay uga barateen martida si khaasaan u soo dhaweeyay Yaxya Cabdi Cali Yaxya waa mid kamid ah dhalinyarta dalka Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland Yaxya wuxuu inooga soo boqolay Jamhuuriyaddii Soomaaliland khaasatan magaalada madaxdeeda Hargeysa يحيى باش وامد كميدا هالأمورنا سجانتا يحيى بقول شيء كل سجان بقول فريق سجاشنكي مجالنا هالجيسا خاصة حافظ الشعب يحيى تويني كده بيجي وحاول كبر باري أو دكسيسي هوسة ده إلا صار هرجع علينا هذا كودا إسلام مجالنا هالجيسا يحيى صدق لها الأمور كليا معه وامد كميدا دخاتيرتا سوماليلاند يحيى ومدرسين سنة كده بينه وكتيرة ما دام يحيى لاستير كيا وحنا ركرنا يحيى مركنو وما عيالنا حنا ركرنا هلا يحيى مرنا دكتور يحيى عبد علي يحيى وصور وين يا أنا يا إيو أمان اليرتا دجانكو وحنا دكوا عصنا يحيى المدرسة وصور ويسا markii hore waxaan islahaa bandhiga odayaasha iman doona waan islahaayay da'da dhexe marka maansooyin canaan u badan baan soo diyaarsaday markii hore oo waxaan islahaa canaanta ku badisay laakiin koladii wasaaradda dhalinyarta oo soo hogaamisay dhalinyartii bandhigeenu wuxuu badan doonaa jacayl buu badan doonaa iyo mawaadiicda dhalinyarada hal maanso oo baan idinku darayaa hal maanso oo cusub oo aan doonayo inaan deegaanka ku furo deegaankani waxaan nasiib u yeeshay inuu noqdo deegaankii ugu horeeyay markii aan ka baxayay Somaliland-teeda meeshii ugu horeysay saddexda Soomaaliyeed kale meeshii ugu horeysay inay maado ayuu noqday mid kamid ah sababaha ugu waaweyn waxa weeyaan waxa aan jecelahay oo himihnadeeda ah hibadeyda ah oo suugaanta ah baan u arkayay inay tahay halkani manbicii ay ka soo unkantay dhulkani waa dhulkii suugaanyahanada waa dhulkii geela ugu badan ee Soomaalidu ku dhaqmi jiray waa dhulkii silsiladuhu ka bilaabmi jireen awoowayaashiin waa dadka qiimaha iyo qaayahaasi leh aan rajaynayna maanta ilaa hadda inaanu hiddasidihii iyo genetics-koogii aanay idinka baabi'in taasaa keenaysay markaa kalgacalka aynan halkan imaado erey baa jiray dhowr jeer lagu celceliyo ahaa Yaxya malaha deegaankan uu ka soo jeedaa waa run oo aan runta deegaankan aan ka soo jeedaa meel balle cabana la yiraahdo oo xadka saaran ayaan ka soo jeedaa laakiin Hargeysa aan ku koray caawa waxaan doonaynaa intaanan waxa aynu caawa meesha ka oranayno bilaabino waxaan doonaynaa ma hadnoqo dhalinyaradii soo dhaweysay ilaa wajaale iga soo dhaweysay ma dareemi karaysaan idinku qof aan ku garanayn ku hayb garanayn aydan waxba isku ahayn weligiina aydan is arag ma garanaysaa aydan xataa laga yaabaa Facebook aydan iska arag markuu laga yaabo intuu wajaale kuugu yimaado isagoon ku garanayn kalgacal halka intuu kuugu yimaado ku soo kaxeeyo
magaalo aanad garanayn ku keeno magaaladii ku baro ku hayo magaaladii ku hayso sidii ay tahay Hargeysa iyo magaaladii aan ku dhashay idinku ma cabiri karaysaan laakiin runtii taasaan caawa rabaa inaan idin cabiro mahadnaqeedana runtii ay yeelataan taasina waxay ka turjumaysaa oo sawir u tihiin runtii dawladda idinka dambaysa iyo cidda idin magacaaban baa sharaftaana leh oo u soo jiidaysaan runtii si gaara wasaaradda dhalinyarada wasiir ku-xigeenka asxaabta si gaara Cabdisalaan Khadra Amiin ururada Saymo iyo maxay ahayd Gorof aad baan ugu mahad celinayaa inta ka sako caawa laakiin waxaan doonayaa inaynu run baynu soo yara sheegnaa waxaan doonayaa inaad run yara dareentaan caawa in run la isu sheegan doonayaa caawa marka way yar qaraadhanaysaa mararka qaar way macaanaanaysaa mararka qaar waad ra'yiga waad igu diidaysaa waxaan doonayaa inaynu baranno sida loo liqo qofka ra'yi duwan qof ku hadlaya waxaana doonayn qof ku hadlaya oo ka aragti duwan sidaad u dhageysan lahayd adigoon qorina qaadan feedna duuban sidaad qofka u dhageysan lahayd adiguna intaad bartaa u timaado aad oran lahayd Yaxya aragtida anigu kugu waafaqsani taasaynu maanta rabnaa inaynu bilowno waayo wala dhisi karayaa hool inta leeg quruxda inta leeg wala dhisi karayaa hal maalin oo jigjiga kacdo hoolashan iyo quruxna dhan way baabiin karaysaa haddaan la dhisin aragtiyo haddaan la dhisin dhalin haddaan kalgacal iyo maxabo iyo jacayl la idinku beerin qurux kasta oo aad dhisataan hal maalin baa ku baabiinaysaa marka waxaynu doonaynaa maanta inaynu bilowno unugno arrinka ah qofka ka aragti duwan qofka aragti duwan ka siyaasad duwan ka dal duwan ka dhaqan duwan sideebaad ma garanaysaayay saad u liqi lahayd taasaan doonayaa inaynu beerno maansada ugu horeysan bilaabaya waa maanso runtii la yar wada yaqaano ayaan doonayaa inaan ku furto fanaanku baa la yiraahdaa heesta loogu yaqaanaba ku furaa ama uu ugu dambaysiiyaa marka ta ugu horeysa waxaan doonayaa mid aad wada garanaysaan inaan ku bilaabo si aydan dareemin qof yar qalaad maansada magaceeda dallahaansha la yiraahdaa waxa weeyaan anigu waxaan ku soo koray magaalada Caynkaas ah ee Hargeysa la yiraahdo laga yaabo aan laba ixtiraafsanayn iska hawlo badan iska mixnado badan inaad liqdo kalgacalkeeda inaad liqdo jacaylkeedu runtii mararka qaar waa wax aad u adag weeyaan laakiin waxay u baahan tahay inaad geeso badan ka soo istaagto haddaad boodhka eegto oo khaliya haddaad eegto waad ka tahriibi karaysaa haddaad madaxda oo khaliya eegto waad tahriibaysaa haddaad culimada eegto oo is haysta waad tahriibaysaa haddaad meeshaad eegto waxaad soonaysaa war meesha ka carar ayaad soonaysaa laakiin haddaad isu wada geyso oo aad isku xidho wax quruxsan baa ka soo baxaya marka maasadan dallahaansho aniga oo maalin meel hudheelaan soo galay markaa meel summer time la Hargeysa ku taala dabadeed shaar cad baan xidhnaa surwaalka waxaan xidhnaa ma xasuusto laakiin shaar cad baan xidhnaa marka kaabad buu lahaa hudheelku kolka kaabadii markaan marayay bay xilliyadan waxa lagu jiray markaas samarka ee dadka qurba joogu inoo soo noqdaan soo maadarag xilliyadaas la mariyay markaas saddex hablood halka fadhiiba isuul dabaalay marka waan yar dareemay inay weytri moodeen amba waan yar dareemay marka laba mid baa banaan inaan ku raadin ninkii ku soo socdaa ninkii adoonaysi uu ku soo socdaa ninkii anigu weytri may ninkii ka soo shidan baa weytri maxaa ku dhacay laakiin noqon weydayo ilaahay maansadan uu ka waday moogtahay waxaan hablii baan u tagay hablii baan ku maxaa cunaysaan markaasay chicken iyo waxbay dalbadeeno way aan ka baxay markaa inamada meesha waan isnaqaanaa inamadii baan ku uri laba chicken iyo caynkaas iyo sharaab caynkaas soo qaada way soo qaadeen inankii baan soo raacay markaa inankii cuntada siday markaas cuntadii miiskii soo dhigay markaas ku inaadeer de weyter maan ahayne laakiin shacniga iyo quruxdaas aan dhaafi kari waayay hablii meel baa gooday adoo habeenkii casha la ii qaaday xataa ayo meeshii baan iska fadhiistay dabadeed meeshii baan iska fadhiistay markaa
marka habluhu habla aad u wanaagsan hablaha qurbahana af Soomaaliga ku yara adag marka qofku hadduu af Soomaaliga ku yara adag hayna waad ka helaysaaba maxaa tidhi ku yara celi ereyga halka ku yara celi dabadeed show markaan sira wareysanay inantu in badan ba may maqnayne waxay maqnayd intan baasaboorka lagu soo qaato 5 sano iyo wax noocaas 6 sano meelahaas ay maqnayd dabadeed on is wareysanay markaan waxaan isleeyahay sheekadii dheerayd gale halkii sare ka soo wareeg baan isleeyahay marka in adeero miyaa lagu qabaayo halkaas aan ka soo wareegay anigu moogtay dabadeed iyaduna meel yaro sakuun bay gashaa maanta gaarigan watayo traafiga ay qabtay 2 jeer guess what wixii weydii laaluush sidii weydii how come waxa ku hadlaysaa marka miyaa lagu qabaa ma aanay igadi dabadeed adigu waxay sidii socotaba hadda sukaay daawan lahayd qosolka ay ka dhamaan lahaa marka ana meel dheer umbaan isla ka soo wareegayna dalcad bay saartaa dhaski maanta samboorka sanku inay cabsi maragta bay taada marka sanku inaad heede marka dhaska meesha yaala traafiga maanta la luushay mixnaday soo aragtay oo dhan aniga dhakada iga saaraysa moogtay inaan ka ardayga miskiinka xoogay marka micnaheedu waa maxay halka maxaa ka yar fahmaysaa halka waxaad ka fahmaysaa inay leedahay dalkan adiga leh Soomaahade waxay leedahay dalkan adiga leh halkan waa tan ka soo baxsatay ee dalkayga hooyaanime marka waxaan garan waayay inantu meel allaaliye meel ay leedahay iyadu way halkaana male waa taygul halkan adaale boorkeedii iyo mixnadeedii waxaan how come sidee ku dhacdaa waa tan aniga igu la moogtay kaas waa inaad reede adigu taamiyaad leedahay maya laakiin waxaan ka war adigu taamiyaad leedahay maya tan hadaba aniga leh adigu meel samaysa baan ku urtay meel u dhaxaysa samaysa macaboorkeeda ana leh maansa markaa ka curatay dallahaansha la yiraahdo waxa weeyaan idinku ma dareemaysaan imaka aniga laftarkaygu si fiican ma dareemayo laakiin waxa lahaanshiyaha la yiraahdaa micno badan buu ku fadhiyaa shaarka aan maanta anigu xidhanahay laga yaabaa inuu ka ugu raqiisan yahay laakiin markii aan soo iibsanayay waayihii aan ku soo iibsanayay baan garanayaa halkii aan ka soo iibsaday baan garanayaa qiimihii la iga soo siiyay baan garanayaa lacagtii la iga soo siiyay haba yaraatee sidii ay mushaharkayga iyo nusu saacahayga uga go'dayd baan garanayaa marka aniga shaarkaasi micno ka badan suudka aad xidhan tahay qaaliga buu ii samaynayaa ويتنقيا aniga sida aan weetanqay marka maanta waxaan ka wada hadlaynaa lahaanshiyaha caynkaas jigjiga intee in leeg baad yeelan karaysaa adigu waayo waxaan jaamacadahan iyo waxaan aad dhiganayso iyo waxaan oo dhan waa been hadii aanad lahayn jigjiga oo aanad dareemeyn lahaanshiyaha maalin baad ka tahriibaysaa maalin baad waxaynu nahayun dad chance ay ku dhoofaan raadinayo baynu nahay hadii aanad dareemeyn inaad meeshan leedahay marka maansadan bilaaban doona meelaha qaar marka Hargeysa iyo Burca iyo waxba ku jirjiraya waxaan doonayaa inaad adigu ku bedelato jigjiga iyo qabri bayaxyadu ku bedela meelahaagii saama ku heshinaa waxaan isiri maansadan way qaataanoo qola koonfur la tagtay oo meel magacyo adag bay xataa ku bedeleeno dabadeed waxaan isiri maanta ma ku badbadashaa dawlad deegaanka gabigeedo haddana waxaan isiri quruxda maansada yar dhiman doonta baan isiri marka meesha aad adigu ku aragto waxaad ku bedelataa deegaankaagii ku bedelo laakiin aynu isla fahanno mafhuumka iyo conceptka ay maansadu sidoo aynu isla fahanno marka hore Dubai kuma lihi cimaarad malihi daaraha Mareykan madega xeebaha Miami Tahraan kama qodo saliida docda Philippine ma aadin dadkana lama korin Spanish cid kale uma dudo waxeeda waxaan ahay ruux dalkiisa dulqaad u leh oo dhex jooga
intaan dhoofoon ka duulo daaliye herer iyo hargeysa xiisuhu London ima dulgeeyo haddaanan duleedka awdal aagaa dilayow mamjoogin dabeed bari iyo guntiisa ku soo arag baarqab doobsha gaaroodi u doonan caano miyaan u aqaan dalxiisba marka aad reerkiin iyo beertiinni ku noqotay ee caanegeel lagu soo siiyo caloosha ku socotay qodaxi kugu tagtay haddii laakiin Nairobi lagu geeyo ama Malaysia ama meelaha lagu yargeeyo waxaad moodaysaa nin seminar u baxay ilaa aad beertiinni tagto caanegeel soo cabto dalxiis dareemi maysid anoo gudin daabka haysta miyaan dawaraa facayga miyaan gaal cayd u doonan eedaan dacwadiyo salaada anoo maqla daakiraada miyaan karayaa durbaano inaan ka dulkaco kaniisad fooqyada dheeree dahaadhan daaraha Norway ku yaala kumaan doorteen habeenna kharaabad duntoo ku taala daamiye shacabkii Hargeysa waxaweyaan kharaabada de baaskiladan ku ag ciyaari jirnay baranboorigan ku ciyaari jirnay bari baan ka soo dhacay waan ku dakhramay xasuus bay daaniga kharaabada iyo geedkan iyo dhagaxan ay sameynayaan laakiin fooq dheer oo meel ka taagan oo aanan garanayn ba cidii dhistay micna Allah iyo micna uu sameynaya ma jirto moogtahay dhulkiiyo degalkiiyo waxayga walow qashin daadsan buuxo siyaasi intuu duqeeyay qabyaalad walow dir soocday dugsiga gurigaan dhex seexdo walow daftiraa abeeso fulaa diga rago yaqaane ka guurhan ku dooran maayo haddii maanta gurigiina aad leedihiin haddii uu xargalo ama abeesa gasho oo aad reerka rarto ka waran reer kale xaafada jaarka aad u guurtaan ka warama waa mushkilad moogtay ama aad reer gurigaba ka guurtaan waxay muujinaysaa inaanad guriga lahayn laakiin gurigu hadduu kira kugu yahay oo uu xargalo albaabadu daataan oo abeesa gasho oo balaayo ku dhacdo dee ninkii guriga lahaa baad lahadlaysaa waar gurigii waanu kaaga guurnaan oo gurigan kuma jiri karayno markaa dalku waa labadaasun ama waad leedahay oo abeesadaad ka soo saari waxaad ka soo saari adaa hagaajisan ama dadkii lahaa baad la hadli cid kale aad leen ku sugaysaa meesha adigu ma lihiday diyaarada mooto guuxa dabaabada gaari roora ma curin miig iyo wax duula ma tegin samada dusheenna dagaarana maan cagaynin markaanse dabuubahayga duntiyo gabay maansadayda dux iyo hal abuurka sheegto ayaan faanaa in doora Soomaalidu de diyaaradana ma samayso Toyota ma samayso Soomaalida waxa la waa the poet nation balada waa ummadii af Soomaaliga waa ummadii gabayga waxaad samaysaana waa gabayga waxaad samayso ku faan markaa ideeqday tanay dihato dhowrtay tanaan degal u qaybay tanaa lixle loo danqaabay koosaar loo dilay qaboono tanaa Axmed Guray u dooday darwiish ku adduunyo seegay tanaan taariikha duuga ilaa dura soo yagleeshay ilaah ka sokow dusheeda tanaan leeyahay duleedba maansadaas halkaasay ku dhan tahay waxaan ku xigsiinaynaa maanseero la yiraahdo magaceeda hadmaad jeclaanaysaa waxa dhacday maalmaha kamida jacaylkaasi fara passport inuu hayaayo weeyaan suugaanyahanadu marna qiso uu isaga ku saabsan buu ka sameeyaa marna wuxuu ka sameeyaa qiso cid kale u sheegatay inan baa maalin markaa igu tiri inan baan aad u jecelahayo inankii uu iga soo hagaagi laayay wax laaliyo wuxuu doonayay garan maaye markaa waan iska dhaafay dhowr jeer baan iska dhaafay maalintii labaad bay igu tiri inankii waan la hadlayo maanta waan ku xanaaqo waxaan ku iri hadmaad jeclaanaysaa iga taa kaftanko ereygaas markaa ay soo jiitay ereygaara hadmaad jeclaanaysaa markaa gabadhii waan sheekadii ka sii guray markaa sheekadan waxa weeyaan gabadh hadlaysa oo wiil la hadlaysa oo kule de qofka ka soo hagaag waxay rag markaa labun bay sameeyaan ragu ninkii gabadhay guursanayaan way sii yaqaanaan moogti ragu gabadhay guursanayaan way sii yaqaanaan ta kalena way sii yaqaanaan laakiin habluhu ma kala yaqaanaan ta ay yihiin hadba tii la guursanayay inay yihiin iyo tii kale laakiin ninku sheedu ka sii garanayaa ta uu guursanayo iyo ta aanu guursan halkaas uu ka sii garanay maybu kooranayaa ta
tan waan la socdaa uun meelaha saleer fadhiisana marka waxa weeye laakiin habluhu ma kala yaqaanaan tahay baanay kala garanay marka halka dambe ku soo maansooyinka dambe waxa ku jirta iyaguna siday u yoolbaadhaan ay u ogaadaan inay tahay tii rasmiga ahayd iyo inay tahay tii beenbeen tahay halka dambe ku jirta laakiin maansan waxay ka hadlaysaa gabadh nin kule iga soo hagaag oo tii rasmiga ahayd iga dhig marka sidan aan u hadlayaa waxa weeyaan haddii aan qabyaaladii wax idinka wacdiyay imka waan qaylin lahaa moogtay laakiin sidan aan u hadlayaa waxa weeyaan sidii maansooyinka jacaylka loo akhriyay ahaa marka meel dhexe markii gaadho codkaygu uu yara dalaacmaya waxay leedahay inantu markaad tahay ruux wax jecel waxaad tahay ruux la jaray cadkiya seedaha jirkoo loo dhiibay qofkuu jantoo ku jira barya tuugsi uu ku doonaya jeexa maqan muddaan kula joogayo muddaan jaalkaaga iyo ahaa jeexaaga midig muddaan samir jiidayoon sidii jirid aasayoon rajiya ku waraabin jiray mar buu ku jaleeciyood ka raysan jadeer wacee hadmaad i jeclaanaysaa hunoy lama jila dareen hunoy lama kara jibaad jimiimica igu lamaan miyaa lagu helaa jabnaan dareen inannima jiraa carjuuq igu yidhi dhahoo ilmadanaan jaxaasayaa jawaab uma noqon kartee hadmaad i jeclaanaysaa sidii laba aan isjarin amaba aan jiqisku noqon intay isku jeex noqdeen jalbeebtama oo kaftama isdhowrtoo isu jamciya hadmaan kula cuni jidiin oo riya kuu noqon jamaal jaadkaagaa iiyah gaar jooggaagaa iiyah maan jaahaagaa iiyah muuq naftaydaa kuu jajaban adoo iga jeestay baa qalbigu kuu sii jilcaa jibbaar xiisuhu noqdaa naf baa tahay igu jirtee miyaan kaa niyad jabaa jannaad ii tahay adduun jaxiimiya aan u maray cadaab iyo jahannamee macaan iga jiidhnaxoo idhaafi jidkaa siraad ma joogo ma jiifsan karo jariya dabar bay hayoo qaraar ma jihaysan karo qayrkaa ma jillaaban karo jirani awgaa dhibbani kuu jeellani sabab la'aan xabsiya jeelbaan dhex aal weedhaaduna jeedal iyo ciqaab iyo weyjirdile waxaanse ku jeel baxaa jeefaafana aan helaa cadkayga intaanad jarin indhaha kugu jeedsadee jalleecada kugu xadee adaan ragga kaa jantee hadmaad i jeclaanaysaa waxaan kuu jujuubayaa naf aan run ka jiidayaan samow jeeniga hayaa waxaan la jihaadayaa damiirkaygoo jectaday jaandheertayduu naco aduu jaallow rabaa jawaab inuu kaa helee hadmaad i jeclaanaysaa adoo jiif tegay maxaan anigu jaha wareeray fikir maxaan jacbur heella iyo jiiftiya kuu qoray odhaah maxaan jabaqdaada iyo jaantaada dhegaystay gelin anoo jiran oo bukaa haddii juucjuuc ku helo jabkaagu idhiig baxshee miyaan beer jixinjixaa talow kugu jirin walaal way dhammaatay maansidaasna maansadan in yar baynu yar nasannay marna qalbigaa la yar doojinayaa marna maskaxdaa lala hadlayaa in yar baynu maskaxda la yar hadlaynaa markaa imanka maansida magaceeda soomaalinimaa la yidhaahdaa hargeysa malabaaba la eriyan lahaa haddaan kusoo bandhiga maansida moogta maansida magaceeda waxaa la yidhaahdaa soomaalinimo waxa weeyaan qofka soomaaliga mushkilad baa haysata waa bilaabaadi sooc qofka soomaaligii identity crisis baa ku dhaca qofka soomaaliga mar waa islaam oo waa muslim oo sunni weeyaan marna waa afrikaan marna waa soomaali marna waa qabiil marna waa dawlad dabadeed qofku soomaaliga gebigiisuba wuxuu ku jiraa wuu israadinayaa wax allaaliya wuxuu sheegtaa buu garan laayaa halkan intii aan joogay iyo halkaa markii aan joogayba waxaan aad u dareemay
qofka Soomaaliga inuu israadinayo cid uu yahay hargeysa markaan joogo waxa laaliya waxaan sheegtaan garan waaya ma Soomaali baan sheegtaa Somalilander baan sheegtaa ma qabiilkaygaan sheegtaa waxa laaliya waxaad sheegataad garan waaysid dibad maxaa dhacaysa markaad soo yara socoteed Soomaalida soo dhex gasho markaad Afrika joogto Afrikaan baad sheeganaysaa Carabta hadaad dhex gasho Muslim baad sheeganaysaa Soomaalida markaad soo dhawaato Soomaali baad leedahay Soomaali markaad gudaha yar gasho waxaad leedahay Somaliland markaad si yar gasho hargeysa markaad qabiilkaaga daanta degto mixnad caynkaas furmaysaa halkanna markaa mushkilad taas oo kala ah laakiin kaba sii daran baa jirta way anaga cidina lama degto laakiin idinka waxa idin dega qabiilooyin kale iyo ummado kale iyo sinjiyada kale idin la dega idinku markaa maansadan waa nooga baahi badantiin way anaga Soomaali baa nagu xeersan laakiin idinka waxa idinku dhinac waxa idinka xiga qowmiyada kale idinka xiga waliba qowmiyadaha kalena dawlad baa wadaagtaan inaad isqeexi taqaanaa kolka oo waxa aad tahay aad isqeexi taqaanaa qayb weyn bay ka qaadanaysaa inaad dalkan ku faanto oo aad jigjiga ku faanto magaalada ku faanto haddaad si isqeexi kari weydo oo waxa tahay aad isqeexi kari weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa oo garan kari weydo kani wuxuu ku yahay kana wuxuu ku yahay haddaad garan weydo mushkilad weyn baa kugu dhacaysa aan soo durko waliba nin baa markaa maalin la soo hadlay maasadu say ku timi marka garan maayo meel buu joogaa wuxuu yiri barnaamij baan daawaday heblaaya ku wareysanaysa caynka waxaan doonayaa inaan ku hambaleeyo waa sax wal maasantaan ku yiri uu soo durka markaa wuxuu igu yiri waxaan rajeynayaa inaad tahay dadka aqligoogu furan yahay ee aan Soomaali diidka ahayn ee aaminsan midnimada Soomaaliyeed ee aan Soomaalida diidanayn marka xaafada aabiye ma leer video aan ka soo kacay maxaad u jeedaa baan ku yiri marka Soomaalida diidanayn dib waxaan boqolkan calan iyo mixnadahan la inagu furay iyo waxaan madaxaaba ma garanaysaa marka Soomaali diid weeyaan waxaasi markaasaan ku yiri inteed qurbaha joogtay markaas igu yiri wallahi carruurtaadan gabayada markii hore igu laamka carruurtaadan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay marka carruurtayda ayaan gabayadaada dhageysiyaa buu leeyahay way marka 30 sanaad qorbo ku maqnayd 30 sanaad dalkii arag carruurtaadu maba xiiseeyaan oo gabayadaydaad ku sasabtaa adigii intaasaad maqnayd dalkaaga ma arag labadeena iyama Soomaalisan baan ku markaa ana hargeysaan ku dhashaan ku koray iyama Soomaalisan labadeena maxaan uga socdaa markaa dareenka ku dhalatay waa qisada laakiin maxaan uga socdaa waxaan uga socdaa waxa weeyaan Soomaalidu waxay aad isku khaladaa sinjiyada iyo dawladnimada sinjiyadaadu waa Soomaali haddaad 100 calan taagato 100 calanka Israa'iil haddaad barta ka taagato Soomaali baad ahaanaysaa sinjiyadaada ninka isku dayay inuu ka bedelo ama isku dayay ku raad haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Hargeysa tag haddaad rabto inaad Soomaali noqoto Muqdisho tag maaha Soomaalinimadu waa inay magaaladaada taala Soomaalinimada jigjiga ka weeyday Soomaalinimada aad jigjiga ka weeyday Hargeysana ka heli maysid Muqdishona ka heli maysid Soomaalinimadaadu waa inay bartaa taala ninka isku daya inuu barxo sinjiyadaada ninka isku daya inuu barxo waa inaad la dagaalantaa ha ogolaanin marna ha ogolaanin mushkilad baa markaa jirta halka hore markaad u socoteed koonfur tagtana Soomaalinimadii calan bay noqotay Hargeysa markaad joogtana war inaga wadaaya Soomaalinimada mixnadana ka sheekeynaya waa maxay haystaba haystaan Soomaalinimada Hargeysana Soomaalinimadii baa lagu bedeshay siyaasad halka shishana waxaad moodaa in siyaasadii gibigeediba laga dhigtay Soomaalinimo imika tusaalayn siinaya madaxweynaha Soomaaliyeed waayo madaxweyne Soomaaliyeed ku jooga imika hadduu jiro ilaa inagu madaxweyne inoo wada yahay ma jiro sinjiyadu siyaasad maaha sinjiyadu waa afka waa dhaqanka waa taariikhda waa ummadnimada weeyaan siyaasaddu se way ka duwan tahay siyaasaddu way isbedbedeshaa Soomaalidu Itoobiya noqon kartaa Soomaalidu Kenya noqon kartaa Soomaalidu Djibouti bay noqon kartaa Soomaalidu Soomaaliya noqon kartaa laakiin haddii labada la isaga ka daro waxa kugu dhacaysa waad iskaran waayaysaa
waxaas maxaan sheegtaa baad oranaysa waxaad sheegataad garan waayaysaa dibad waxa suura gala ninka calanka haysta inuu kuraado iskaga bax calanka maad seetaa may matiid Soomaaliya iskaga bax aad maad seetaa calanka buluuga may ka bax Soomaalinimada aad maad seetaa iskaga bax Soomaalinimada calanka buluuga soo qaata dikal ka bax Soomaalinimada waxaan anigu aaminsanahay laga yaabaa inay iga aragti duwantiin caawana rabaa inaan idin soo bandhigay waxa weeyaan sinjiyadu calan ma yeelato dawlad baa calan yeelata hadday igu waafaqsantiin iyo haddii kaleba sinjiyad ma yeelato calan laakiin waxa yeelata dawlad baa yeelata dawladda Itoobiya calan leh dawladda Djibouti baa calan leh dawladda Kenya calan leh Somaliland aan ku darsanaa anagu iyo dawladda Somaliland calan kale waxaan ka wadaa markaa waa maxay waxaan ka wadaa taadama hoos ka tuur bay laakiin laynama ictiraafsanay laakiin waynu ku tuuraynaa waxaan ka wadaa waxaan markaa mafhuumka aan doonayay inaan idin sheegaa waxa weeyaan hadaa aqbashaan inaad Soomaalinimada Muqdisho iyo Hargeysa ugu tagtaan Soomaalinimada waa la idinka saari doonaa maalin dhow ha ogolaadina in la idinka saaro Soomaalinimada waxa ogaataan jigjigayaa ka Soomaalisan maanta alla idinku dhaariyay jigjigayaa ka Soomaalisan laba intaasoo kun oo qarni baa awooyaashin halkan deganaayeen oo qowmiyad kasta la deganeeyeen haddana maanta marka jigjiga joogto wallahi baanu qof af xabashi ku dareen af Soomaaliga waa wallahi waan wada dhageystay dhalinyarada oo dhan af Soomaaliga qofka reer jigjiga af Soomaali ka badax tiran oo sooca weeyaan intaasoo kun oo qarnina waxa la deganeeyeen qowmiyada kala duwan yaa idinka Soomaalisan Hargeysa ma aragtaan nusba Ingiriis lagu wada hadlaa qofku markuu hay'ad tago haaf Ingiriis ku hadlaa deegaankan yaa ka Soomaalisan deegaankan waa deegaankii geela ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqnaa waa deegaankii gabayaaga ugu waaweynaa ka soo bixi jiray deegaankan haddii Soomaalinimadiisa shaki la geliyo oo shaki loo geliyo maadaama calanka la sito yaa Soomaali noqonaya waxa isku daydaan markaa khaanada sinjiyadu waa khaanad aan muran gelayn magaaladaadana laga qaatay Soomaalinimada iyo sinjiyadaada meel kale looma doonto anigu Soomaalinimadeeda Muqdisho uma doonanayo Hargeysa waa inay igu timaadaa أنا أرجيسا كوكراي أو كل شيء أنت هلا قدو قف يقول الصومالي متي هل كان الصومالي كنا قنايا هل كان تشجع أدو تشوجا هذا الصومالي كنا قن ويدا تشجع هل كان كنا قنايا الصومالي كنا قن ميسد ملا سياسة لكن واشياء كله سياسة إذن كاختيار كله هل دور كينا تشوجا سياسيين تينا تشوج مل الله السمدا مدوجا هذا واركتان سياسة السمدا مدوجا تجدين كصوماليا meel allaaliya meesha doontaan ku darsada idinkoo Soomaaliya siyaasaddu kuma xidhna shalay 60kii Hargeysa waa la ooyay waxa loo ooyay midnimo Soomaa maantana lama soo hadal qaadi karo marka ma waxa la oranayaa shalayna Soomaali baa ahayn maantana waa gaalo eeg siyaasaddu way isbedbedeshaa shalay meel baad dan u arki karaysaa maanta uma arki karaysid shalay dawlad baad ka tirsan tahay maanta kama tirsan siyaasaddu saasay isu bedbedeshaa dhibaato male doorasho lagu helaa waa dimuqraadiyad kolba dawladnimo ku xiran tahay taas calan bay leedahay passport bay leedahay laakiin sinjiyadiina marna gorgortan ay gelinina hana ogolaanina in sinjiyadiina gorgortan la geliyo waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali waxa ugu horeeya ee tahay waa Soomaali markaasaad noqonaysaa dawladdaada iyo passport-ka aad seetiyo calanka aad seeto calankaagana taa ku sido sinjiyadaadana bartaa ku sido yaan la isku dayin labada la iska ka dhex dhigo oo lagu leeyahay Soomaali ma tiid hadaanad calanka Soomaaliland sidan Soomaali ma tiid hadaanad ka buluuga sidan yaan taa la isku in la iska ka dhex dhigo marnaba ha yeelin anigu waa sidan aaminsanahay Yaxya ahaan waa sidan aaminsanahay laakiin kulli way iga aragti duwanaan kareysaan marka waxaan doonayaa inaynu baranno inaynu kala aragti duwanaan karayno la aqbalina karayo lana liqi karayo in la kala aragti duwanaado inagoo isqancin iyo wada hadal ku dhameynayna ma sida magaceeda Soomaalinimo la yiraahdaa Soomaalinimadii marka waa la khalad fahmay Soomaalinimadii sinjiyada ahayd baa siyaasad laga dhigay waxaynu doonaynaa marka inaynu qeexno waxay Soomaalinimadu tahay ma sadana marka qeexaysa tixi waa sarbeeb surin ruux lahaa isagoo ku siman laga sogorto hood dabadeed soco cagta saar la yiri marna waa sifayn sugid iyo ilayn
sixid iyo cadayn kolka shay samow sidii qorax ahaa caad loo sasabo luun kugu sarnaa sacabkaaga oo subag laga shubtaa sahay kuu noqdee baabaca saluug surmi kaama tiro sir ma sheegayee waxaan uga socdaa Soomaalinimo mala saylad iyo sicir lagu gado han siyaasadeed lama siisan karo han siyaasadeed lama siisan karo diintaas soo waa kan qeexinteedii diintaas soo dhaqanka u sada dharku waa u sumad soorta u cada afku waa u sahay sabad iyo kobtuna saameyn ku leh Soomaalinimo qof su'aalayow calan kuma suntana cidma seeranoo qolo kuma sidkana mana aha sallaan siyaasi meel sare ku koro sir maaha oo lama sii sarrifo lama yiraahdo anaa ka Soomaalisan anaa ka lama sii sarrifo Soomaali waa Soomaaliun sir maaha oo lama sii sarrifo waa siman Soomaalido waa sawrac iyo sinji aan ummada kaga soocano ma sariigan karo sagaal baasaboor ninka sii sitow Soomaalinimo lama sayri karo Soomaalinimo qof ka saaris yiri sibiq ima tiro waa saxiix rabbigu idul saarayo xididkeeda sugan uma siibi karo haddii lagu sidko inta lagu sibciyo gaf siyaasi galay dawo saxal tirtiye looga dhiga sabiib wax ma saacidee sunta iyo ladhka seedaha gasho darsanaado oo Soomaalinimo saska qaadayay simankaas dhasha haddii maanta balaaya dhacdo oo la islaayo la isxasuuqo on kuraado Soomaalida ka mas'uulahayd ka war de kuwii la laayay way ka xanaaqayaan Soomaalinimada Soomaalinimada kolka ma qaadata iyadu gafka ma qaadata xataa haddii qof wax laayo qof wax xasuuqo qofkaas xasuuq xataa qabiilkiisa ma qofkaas uu baa ka mas'uula cid kale mas'uulka ma aha qabiilkiisu mas'uulka ma aha sinjiyada Soomaalida oo dhan qofka xasuuqa sameeyay qofka wax laayay baa mas'uulka ah haddii se lagu sugo oo Soomaalinimada la marmariyo de qaar ka booda soo baxaya Soomaalinimada saska qaadaya Soomaa waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay waa qurux markaan leenahay ereyada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maxayga qurux badana magacu marka saa leeyahay laakiin haddii uskag laynaga marmariyo kuwa uskaga la marmariyay baa ka xanaaqi doona magaca marka haynaga marmarinina uskaga siyaasadda Soomaalinimada haynaga marmarinina waxaan uga socdaa ereygeeda samee waa saxar la'aan sifadu yahay sahan aanay wadan magac aanay suran madax aanay sidan yaan lagu sawirin yaysaad u noqon sad bursiima iyo ninka saayid raba yay soo xisiyo dadka seexad farin marna sayma iyo cunfi lagu sallimin salfudaydka jaan waan salow badnee saajin raba dagaal yuu igu sasabin sidaheeda bilan yaan la igu sirin Soomaalinimo waa jacayl sadriga ka saaqaye midna cayb ku simay yaan la igu surin yaan siiri wade koox kala la sifan qaladkayga sixin sababaynta guud waxaan uga socdaa way sal guurtayo way simbiitayo saxal baa galo waa lagu saxdaye Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay haddii baasha la kala xigo oo la kala leeyahay haddii baasha la kala leeyahay Soomaalinimo haddii lagu siqo lagu kala sad yahay siinay baan ku koray dugsigii sariya kaygii sokaba kobtanaan ku sugay saan qaadayo ilaa saakadaas sikin maan ka tegin af Soomaaligana suugaan duxlaan siin kuu marshay Soomaalinimo sakad iga xiga maansidaas intaasay ku eg tahay waynu israacinayna maadaama waqtigu inagu yara gaaban yahay maansida magaceeda ku xigta magaceeda waxaa la dhahdaa layaab maansiro gaaban marka halabuur kastaa saxiix uu leeyahay waxbaa lagu gartaa halabuur kasta
suugaanyahan kasta dad beedkiisa akhrido waxaad dareemaysaa inuu beedkan yahay beedkii hebel beedkii sayidka beedkii qamaan waad dareemaysaa beedkaas inuu hebel sameeyey waayo farshaxankiisa aad garanaysaa maansani waxay ka kooban tahay hal ereyo qura layaab ereyga layaab oo qura ayay ka kooban tahay ereygaasa marna fal noqonaya marna falkaaba noqonaya marna magac noqonaya marna sumad noqonaya maalin maalmaha ka mida markaa baa ninbaa waxuu sameeyey waxuuna uga soo qaadaa dabadeed runtu maxaa waxaan u samaynaysaa baan kuri markaa ku kale muddo waxaan waa la sameeyaa maalin kasta maxaa kugu dhacay anigu markaa waxaan la yaabanahay kan waxa wuxuu sameeyey soo maaha kan kalena anigu ila yaaban yahay uu leeyahay waxaan maalin kasta waa la sameeyaa maxaa kugu dhacay markaa waa la yaabka la yaabay maalin kastana way dhacdaa haddaad wadada qashin ku tuurto war ka daa tiraahdo waa lagu wada tuuray maxaa kugu dhacay meesha manage jigaa in lagu dhada ka war waa la yaabay markaa xumaan baad ka yaabtay xumaantii aad ka yaabtay baa adiga lagula sii yaabay la yaab weli shay ma yaabtay u yeedhay nimaan la yaabin markaa tidhi waa la yaabna la yaabka ma kuu xambaaray adoo libilaab la yaaban la yaabkan dushaada saaran maansada ma la yaab dhawaaqday la yaabkan la yaabay haddaad adiguna la yaabto la yaabka waxaa lahaaday la yaabadan kii uu yeedhay kii markii ugu horreysay waddada ku tuuray khashinkaa leh yaabka naftaydu qofay la yaabtay markay ka yaabtay u yaabtay markay la yaabtay ayaan weli ruux la yaaban la arag lana maqal la yaabiye adduunyadan aan la yaabay dad baa jira aan la yaabin la yaabka markaad la yaabto dad baaba la yaab ka qaada la yaab sababtaad u yaabtay waxaa jira ruux la yaaban adduunyadan aan la yaabay la yaabka markaan abbaaro ku sheego la yaaban yaabay ka yaaba sidaan la yaabka la yaab ugu qaab tilmaamay la yaabadu kala la yaabsan dadkuna kala goor la yaaban ha yaabin kolkaan la yaabka ku sheego la yaaban yaabay la yaabadan maansadaydan la yaab malakii la yaabay haddaad maansana la yaabto adigu la yaab ma lihid moogtahay la yaabadan maansadaydan la yaab malakii la yaabay kulley adiguba la yaabtay la yaabadan aan dhuraayo la yaabse waxaa lahaaday la yaabba nimaan ka qaadin la yaabka wixii mar keenay kii aan la yaabin wixii markii ugu horreysay aan anigu la yaabay baa la yaab kale la yaab iga yaabka baaji ii hiili la yaab mar uunbal la yaab ila yaab hadduunbal ha yaabo dadkuiyo la yaabbal la yaab isu sheeg la yaabkan la yaabba naftaydan yaaban alla ilaahe waa la yaabay la yaab kale jooji yaabka u jooji dadaan la yaabku ahaynba la yaabka shooda waa dhammaatay mahsaasna maansada ku xigta magaceeda waxaa la yidhahdaa dheelmasho laba maansoo jacayl un baynu kusoo xidhaynaa dheelmasho waxa weeyaan inagu jacaylada waxaynu maqallaa un guulaystay annagu dejiyeysanay un baynu maqallaa moogtahay jacayladaas ma badanka loo gabiyaa laakiin waxaa jira qof kasta oo guursaday ama qof kasta oo guurdoona ilaa 5 jeer buu ayuu ka soo xumaaday xiriir ilaa 5-6 jeer buu xiriir ka soo xumaanaya marka hore marka nacabka ha u jabin laakiin iska raadso wax adiga hadda boqol ka soo xumaadeen maasadan marka waxay ka waramaysaa imika mushkiladda jirta waxa weeyaan qofkii oo istaqaaneen oo wada socoteen in baad kala hadhaysaayo makii yaxya ahaa ay igu soo hadal qaadin uu uri jiray baan u maraynayaa barigaan oo kaalay sawdigii gulaha markii hore waad udgoontahay ma aha may khaaqun baad u ekaanaysaa moogtahay marka qofka saa u kala tagtaan baad buti u yara ekaanaysaa oo inaad markii hore mid caadi ahayn markii hore idin la socotay baad caadi ahayn maansadan marka waxay ka waramaysaa gabadh aan bari wada hadli jirnay bay ka waramaysaa suugaanyahanadu wararka qura intay bartaa soo fadhiistaan jacayl iska cadaystaan moogtahay wararka qura intay bartaa kaga sheekeeyay noloshooda gaarka ah dibadeed la isku dabiibo marka dambana
gabadh aanu kolkaa wada socon jirnay waxa dhacday beed maansada ku jira baa wuxuu saadinayaa inay nin aniga iga wacan hesho sidii bay markaa dhacday oo nin aniga iga wacan bay heshay baan u malaynayaa maalmo dhexdii ahayd bay guursatay markaa laakiin maansadani waxay ka waramaysaa marka uu xidhiidh dhammaado suugayahanku maansu ku soo khatimaa si uu xidhiidhkaa u ilaabo deed markuu heblaayo xasuusto maansadii buu xasuusanayaa maansadaasi dabadeed waxay ka saacidaa hablo badan ama rag badan inay xidhiidhada joojiyaan iyagoo oon dhibtoon laakiin kan wuu dhibtoonayaa marka hore marka maansadan dheelmashu waxay ka hadlaysaa isfahmi waaga labada qof ku dhaca facebookan ku jiraa baad odhanaysaa kuma jirtid bay ku odhanaysaa waxaan kuu soo wadaa wixii maaha labada qof markay kala tagaan waxa lagu yaqaanaa ismaba fahmaanba maansada markaa waxay ku bilaabmaysaa isfahmi waaga hore kala taga laakiin waxa la socda kalgacal baa la socda qof iga wacan inaad heli doontaa la socda marka waxaan doonayaa inaad kalgacal yeelataan qofka haddaa wada joogtaan iyo haddaa kala tegaysaanba waa inaad kalgacal yeelataa waa inaad la xijecla yeelataa qofkaas hadduu tagay iyo hadduu joogaba waa inuu isku mid kuu ahaadaa ilaan shalay adigu 5 qof maad ahayne dhanqalnaanta uurkaaga qaday danuhigoodkaaga waa isfahmi waagii dhanqalnaanta uurkaaga qaday danuhigoodkaaga dhafandhaaf ujeedada la gabay kala dhantaalnaanta isxaq dhowrka noloshaan ku dhafay iinta dhagaraysay fahan dhoofay maaguu dalbaday dhayga ku hilaabtay ku dhawaaqa ereyaan danqaday aahda dhinacayga bar kaliyo inaad dhaaftay oo dhiiri kugu diiday dhul shishaan ka maansoonayaa dhaawac kugu yaalle judha aan dhigaabay hanti kale ma deegtoon ahayn gabay dhextaalkiise judha aan dhigaabay qalbiga dhiifi ba'aysaaye dawo kale ma deegtoon ahayn gabay dhextaalkiise malahayga dhudayay siri way ku duganuune mar dhagayso adigay dibnuhu kuu dololayaane waqtigiyo ayaamaha dhidbani way dhib badan yihiin dheef iyo wanaag iyo kol kale way duxdilan yihiin kololbaad galiilyada dhaxda yaa ku dhalan doorsha kol kalena dhexdeedaa tidhaa yaa ha dhiman sheega imtixaanka rabbi baa duldhigay duunyo damideede barashada intay ruux dheg wacan kuugu dhakab siiso qalbigaaga goortuu ku dhego amase dhuuxaaga kolka uu u dhaadhaco bogiyo dhuunta iyo laabta ayuunbay dharaar aanad filan kaa dhufsanaysaa noloshu intii qof yaro wanaagsan ku barta maad aragtay ayuunbaad subax kusoo toosaysaa qofkiiyoon ku ag jiifin haddii dumarku wuu ammaanayaa markaa haddii dumarku dhowr kale yihiin dhoocil iyo gaari dadigaad u tahay raalliyiyo dumar dhabeeshoode dheehaagu soomaalidu dheegga ku hayaaye xishood hooyo kugu soo dhaqdaad dhabu falaysaaye dhudhumbaad haween dheertihiyo badhiyo dhiidhiiye dhaqankaagu diin buu wataa garasho dhaadheere asturnaantu waa kuu dhar iyo sadadka dhiibsoone dhaashigaagu waa daacad iyo dhaxalka diimeede hadalkaaga ruuxii dugtaa wuu la dhacayaaye nindhigaaga caynkula ahoo dheegsan baad heliye rajadaadu yay u dhimantaydan dhegabeeshay markaa hore wuu iska daray moogtay haddana wuu sasabanayaa qof dhammaysi duunyada ma jira dhaadma badaneeye qofba dhinac madow buu sitaa gudcur dharaartiise aniguna dhigaasaan ahoo waan kaldhimanuune qirashaan astaan dheerihiyo huunna iga dhaafe raallidayda dhiilkaan isidhi dhaaxa ugu buuxi kol haddii abaalkaan dhambalay saaka dhidar qaatay kol haddii dhawaaqaan idhaa booga dhalinayo kol haddaan dhanaan kuu noqdiyo ruux ku dhilan waayey aamuskaan dhaqaaqiyo shibtaan tala ku dheegdheegay dheelmashadu waxay iga ahayd dhowro bilantaaye dhacdhacaygu beerkuu galiyo iidhay qalbigaaga haddii dhabanka ilmadii badnayd iima dhaxal siisay wadnahaygu dhagax maaha iyo walax dhadhaabeede dakafaarka waan kula qabaa dhabannahayskaase dhifdhif baan haween kaba dugsaday naadir iyo dhowre dhinacayga geestaa jirtay dhaxantu haysaaye la joogaagu hadduu dhaami karo waan isdhigan laaye dhangaddaa xanuunkeed ba'daa saacad dherarkeede sow weli dhawaaqaadi tidhi dhuuxa kama taaho
dada maaha wacadkaan galiya dhaarto ideeye digaalkaygu waa kuu tixraac maalin dhacameede haddii guri dhismaha loo ayido dhaabadiyo seeska ma ogtahay dabaylaha dhacaadhayal ma xaaqaane runtu waa dhexroorkii cishqiga udubdhexaadkiiye dhalanteed haddii loo yabyabo udub male la dhoobdhoobay sida dhayda caanaha haddaan waarig lagu dheehin dhala iyo waxay soo baxdaa shay dhashkaa odhane inta aanay beladaasi dhicin yaan dardaar dhahaye hayga dhigin sidii ruux ku nacay waan dhibsanayaaye way dhammaatay maastaasna maansadii u dambaysay baynu akhriyaynaa maansad magaceeda deeqaa la yidhaahdaa deeqi waxa weeyaan iminka berigii hore ninbaa wuxuu yidhi haddaad gabadh qabto iminka samankan qarniga 21aad haddaad gabadh qabto waxay u dhigantaa adigoo 4 gabdhood qabay 2 qarni ka hor oo waaya baan ku niri wuxuu yidhi berigii hore gabadha subaxdii baa la arki jiray oo waa laga kaliyi jiray habeenkii baa loo soo noqon jiray iminka laakiin telefoon bay siiyay 5 jeer bay ku soo garaacaysaa buudi marka waxay ka dhigan tahay buudi adigoo 5 dumar qaba oo waagii hore la awooyaashin hooyo way ka kaliyi jireen uno waxay u soo noqon jireen habeenkii Soomaa iminka laakiin waad sidataa buu leeyahay xaaskaagii moobilkaad ku sidataa waryaalkeed joogtaa marka wuxuu leeyahay dhibaatadii waad sidataa imako xaaskaagii waa telefoonka imako halkeed joogtaa habsaantii caaw maxaad qabanaysaa halkaasaan kugu arkay heblaaya kula sawirnayd maxaa kugu dhacay waad sidataa buu ku leeyahay imaka gabadhii moogtay marka 5 dumar waagi hore bay u dhigmaan imaka gabadh hadaad qabto waa sabaha idaan ula guursanayn baan malaynayaa waxa weeyaan marka dumarku sida u fikiraan iyo raggu sida u fikiraan way kala duwan tahay ilaahayna markaad eegto sida la isugu beegay ragga iyo dumarka kan waxba laga qaaday kana la siiyay awood baa gabadha la siinayaa adaa laga qaadaya adiga awood lagu siinayaa gabadha laga qaadaya waxa la doonayaa inay wax isu keenaan baa la doonayaa kolka maasadani waa nin gabadh ka sasabanaya telefoon marka gabadhii 5 jeer ka xanaajiyay moogtahay marka telefoonkii bay ku dhigtay 2 cisho kamay qaban marka maalintii 3aad maalintii 4aad bay ka qabatay telefoonka marka waa wada hadalkooda marka inay yara anfacada laga yaabo moogtay waa sidii abwaanada hablaha u jabsadaan baan malaynayaa iyadoo kooban kolka isaga hadalka bilaabaya telefoonkii baa dhacaya way qabatay markaa hello deeqay marka telefoonkaaga way garanaysaa numberkiisa codkaagana way garanaysaa laakiin markay rabto inaanay ku garan kuma garanaysa gabadhu waa shardi kamida shardida leeyahay marka kuma garanaysa way marka laga bilaabo hello deeqay waa kuma marka ku oranaysaa markaas oo iyadu ismay nasakhin daana waan isnasakhaya markaa waa damiin iyo doqonkaagii maxaad doonaysaa markaa waxaad doonaysana way garanaysaa ilaa watan telefoonka kaa qaban weyday laakiin marka laga bilaabo ma garanayso ku darsadayo buu leeyahay markaa ku darsadayo waan dabayshaday ku dib jirayo dibadyaalay hal daqiiqoon kula doodaan ka dawaraya ma adigii wixii aan ogaa sameeyay baa markaa doonayay waliba inaad hal daqiiqo ila hadasho dabuubtaada cudur iiga daran marra daawiya dabiibihe hay dagaalina codka ii daji oo baldamaq iyo daybal boogahan beerka daashaday marka wuxuu rabaa yoolka inuu bedelo oo yiraahdo sidaan kuugu darsaday maka eeg wixii hore iska dhaafo ma imika doonaysaa dana istaafacdo inta adaygaaga ninkii wixii oo dhan sameeyay waliba ku celiyeen 2-3 jeer saamaxay ismada marka dumarku ay caado u leeyihiin haddaad khalad samayso gogasho dhan bay ku duudubeen imaad jeclaan waligaa imaad jeclaan noloshaada markaad soo guursatay xataa imaad jeclaan aniga hayo kaad halka gaarsiinay khaladkaas sameeyay maad ku yaray kaad may noloshaada maninka waxa sameynaya jecel maba ii jecelid bay marka laga bilaabo marka muxuu leeyahay isma daaficin buu leeyahay marka isma daaficin dambi waan galay tirirtaada iyo dibindaabyada waa u dul leeyahay qayladaada waan u dul qaadanayaa anu laakiin waxaan u dul qaadanayn waxaan diiduun dareenkayga dafirayso waan yar daahaye maan darjeedinay kuun dar sheegtay marun ii dabac
وقر ولا إن أنا كنت بعين بمكاكونس صوت القات كيو سمير ظاهرة دقيقة كومتيد ما سنة هانشرين ولقى أنا دي ستة بعشرين أنا قوام حي ما أنتم حنكون رعي صوت القات كيو سمير ظاهرة دقيقة كومتيد hablo dooro kula daa soo kaama dooranin ha soo dubaaqi qalbi duun jira daraad kuma siin wacad dooriyo ahadi aan dumin soo ma daabicin dunidaydiyo soo dantaydii kuma daayicin sida daadkaan hadba daafiya doc garaacee jir dubaaxshiya aaway diirnixi kugu diira wixii aan kaaga bartay dulqaadkaagii aaway marka uu bedelayaa wax horu ku celinayaa wax ma ku sheegaa telefoonka ii dhig intaas ay ugu filan telefoonka ii dhig tabalaab iyo midi doono hoo i dooxani naftan kuu diran adigoon dilin ila loo duwin jacaylkaan dabay seen u dagagari ma wixii tacabaad leedahay telefoonka dhig waliba iyadu qabsanaya moogtay gabadh kala raadsan adeer gabadh kala raadsan dumarku waa kuwa badane ilaa aniga mixnada ila dur saarnaan ma saabini maalin ay gabadh kala raadso heedha deeqay ileen diintiyo dabcigaaga ay daryeelo dabariyehe waan ku daynbe kolka aan dumo cadhadeedamo waxay daal tira oo ii daawo ah bal dawaafo doono ee keen iyadu leey gabadha doon moogti weligeedna gabadh kuma keenaysa iyadu markaa إلا وياك تعيش قبل كم كان يسموكتي ولي قد قبل كم كان يسمو قفا دار إيو قري دير لي أتكسون وطي هايسكا ديريني إنت دير لي عنكو تعوضو قد الرورية عرضرور لاي من دلاعية تبنى أبحي حتيقاها تمرنا الدقاراي مقدي قود دمي عد هوري موحد ضدي أودي ديريني مركان طيمدا عركي دهنا iska daayeen dayixii yiri deeqay ugu filan walaayma markii qoreen cadceed iyo dayixii ka maarmay yiri deeqay meesha ay leeynaysa ayaa iska tagaysa inta adeegida sida doog baxay oo daruur helay raga doorkaya aan dul dhaafee madiidaysani mise diiftiyo heedha daranyada aan ku daa'imi wadi dayrini aad ba u mahadsantihiin dhammaan reer Jigjiga ilaahayna shaqada ideeqday tana wiil waaluda aynu bedelano halku lixlayno ugu bedelayno wiil waaliyo doodaan iyo sayidkeenu bedelano madasha waxaan rabaa inaan ugu yeedho nimca shaami oo gudoosiin doonta abwaanka hadiyada ay ugu tala gashay nimca soo dhawaad nimca mar labaad iyo mar saddexaad baa loo sacabeeyay soo dhawaad abwaanka la sii sogotiyo yahay abwaan Dr. Yaxye Cabdi Cali oo loo yaqaano Yaxye Yeebaash mar labaad iyo mar saddexaad ba Yaxye waanu mahad celinaynaa inuu safarka inta leeg noo soo galo si gaar waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyartii su'aaba bushay barnaamijkan oo ugu horeeyo afayeenka ururka Saymo Cabdisalaan Ibraahin mar labaad iyo mar saddexaad ba saaba loo tumay ويحيى دون والبا نولشو inooga qaado wuxuu yiri huunay lama jira daleen waa halkii u dambeysay jacaylka filaya hadal dambe oo ka dambeynaya ma jiro waxaan rabaa inaan u yeedho afayeenka ururka Saymo oo kelmadiisa halkan ka oran doona Cabdisalaan Ibraahin la soo dhaweeyay
marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan rabaa inaan si guud intaanan ugu mahadcelin si gaar ah ugu mahadceliyo wasiirada sharafta leh maalinkii aan programka bilownay ilaa maantaan marna naga daalin. waxaan rabaa inaad si niyad lagu sacabisaan. waxaan rabaa fursaddan aan uga faa'iidaystay inaan idiin sheego maanta waxaan haysanaa fursadii hore ka duwan. waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan dalka inagu leenahay. soomaalidu waxay tiraahdaa dal dhisan baa dal dhisa. dadku markay dhisan yihiin baa dalka la dhisi kalaa. gurigan haddaanan ninka injineerka muunan aqoon lahayn muunan dhiseen war maynahayn. inteennan haddaanan aqoon lahayn maanta maanan isku imaaneen. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirada sharafta leh. wakhtigoodii baynoo horeen iyagoo hurdaan garaacaynay oo noo mahadcelinaya. aad baan idinkugu mahadcelinayaa. qof kasta waxaan leenahay abaalkaaga ma gudi karno balse eebbe weyne hortiisa ayaad ka heli doontaa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo دكتور يحيى عبد علي يحيى يا باشا أبواب وقتي سقى أديها منوصة هوري مدقة من نلجوا جدونا حتى وصل بوته هالمال وحن أدوار مهدعين يا عد سجيجة هاي نوي مادو وبرنامج كنا قبتين ونوفري أدبر مهنقيا وحن رواينا الله دردار من اليرد كل يران مايو لكن وحن رواينا ندي شيء haddaynan inteennan wax ahaynan midnimadeennu mid ahayn dalkeenna ma bedeli karo dadkeenna ma bedeli karno. waa tii yaxya inoo sheegi lahaa lahaanshiyo wax la yidhaahdaa jira. gurigaaga haddii abeesa ku jirto adaa la rabaa inaad kala baxdid. ku dheeraan maayo. wasiirka iyo wasiir ku-xigeenku waxay rabaan inay program inoo sheegaan balse intaynan gelin waxaan rabaa inaan la daarno ubaxan horteeda ka muuqda. waxaan kaloo rabaa dadka i daawanaya ee odayaasha u badan inaan fariin u diro. annagu siyaasiyiin mani. annagu waxaan nahay ubixii dalka iska lahaa. dalka cidda lagala tashanaya ee la weydiinaya waa annaga. cidda la rabo dalka inay ka tashato waa inteena. bulshada afka soomaaliya ku hadasha dhalinyaradu waa 57%. taasi waxay ka dhigan tahay miisaaniyadda ummadda ama 100% inta ugu badan waayo waa innaga ma buuxina kaalinteena. anu beedii sheegi maayo haddii aad noloshiina qabyaalad ku doorataan weligaa baanad magacelin weligaa baanad sumcad helin weligaa baanad sharaf helin. adeerkaa hadduu wasiir yahay maalinka wasiir loo doorto albaabkiisa geli maysa. beedii sheegi maayo wallaahi inaan gelin. laakiin ku islaama oo mu'mina oo khaalisa maalinka wasiir laga dhigo albaabkiisaad garaaci. qabiil isuma kinkeynin dan baa soo kinkeentay lahaanshiyuu dareemayaa. yacni qofkaas wuxuu ku dareensiinayaa inaad tahay ubixii dalka u soo koraya. marka aan xafiisyada tagno waxay noo sheegeen inaan nahay kuwii dalka iska lahaa. waxay yidhaahdaan annagu waan idinka tegaynaa laakiin waxaan rabnaa inaad booska naga buuxisaan. noloshu waa qori isku dhiib. laakiin waxaad moodaa ubixii dalku inuusan dareensanin lahaanshiyo. inaanaan dareensanayn tan inaan inagu leenahay. annaga ururka sayma ahaan maalinkii dhowad program baa qabanay wasiirada nagala soo qaybgaleen aad baan ugu mahadcelinaya. barnaamijka micihiisu wuxuu ahaa magaciisu hiil walaal waa lama huraan. haddaad adigu dheregsan tahay haddaad dharaad xirata haysatid haddaad meelaad seexata haysatid qaar baa gidaarka jiifta qaar bay dhaxantu dilaysaa. waa hooyo soomaaliyeed waa aabbo soomaaliyeed waa walaal soomaaliyeed yaa la rabaa inuu danqado. ma waxaan ogolaanaa qofka innaga nala dhashay inuu qof kale gacantiisa horsado? maya. annagu waxaan u asaasanahay ma aha inaan xafiisyada dowladda garaacno. waxaan rabnaa qof kasta oo afka soomaaliya ku hadla inaan ku dhahno 10 riyaal jeebkaaga ku jira keen cid buu ku taray haddii aad wax ku taraynin. intaad ku taklifalaysid dad bay noloshooda tahay. idinku dheereen maayo. barnaamijka labaad soo wadno hordhac bay ahaa kolley gabagaba ku dhow yahay. barnaamijka labaad soo wadno waxa weeyaan oo rabnaa inaad nagala qayb qaadataan. waxaan rabnaa 150 qof oo dhalinyaro inay shaqo abuur sameeyaan. magaalada Baalashka waa laga haystaa. dukaamada waa laga haystaa. bakhaarada waa laga haystaa.
meel kasta oo muhiim oo laga haysta taas waxay ka dhigan tahay mustaqbalka beri waad guuraysaa meenahay يعني haddii aan inagu kaalintaa buuxin weyno oo intaan gacmaha isqabsanno dhan wariyaa 10 urur baa la sameeyey 10 keena min hal qof soo saara kaale shaqada buuxinay meenahay innaga waxaan noqonay dad wax loo yeeriyo laakiin inagu aan noqono kuwii ummadda wax yeeri lahaa innaga waxaana lagu yidhaahdaa halkan mara waxaan rabaa inaan idiin sheego oo idin dhaho war aan noqono kuwii wax yeeri lahaa kuwii ummadda dhihi lahaa halkana malaha qurux badan in la maro waxaan idinkula dardaarmayaa ubixi dalkaana innagaa u soo korayn odayaasha waxaan leenahay adeer haddaad ree hebel meesha ku joogtid oo nin hebel wasiir meesha ku keentid annagu adiga kula tashanayno qofna la tashanayno qofka annaga dhallinyarnimadanada ogol oo ogol inaan ubixi dalka nahay oo og inaan berri bedelayno kaasaa annaga xaq nagu leh inaan waqtigayga siino laakiin oday maanta waxaa jira nin aan suldaanahayn laakiin duubka xidho sooma kuwaasaa ina wereeriyey innaga marka dunidu qabyaalada ay ka tagtay laakiin innagu waan joogna waxaan 40 sano isku jirayna maanta taagannahay waxaan idinkula dardaarmaya oon mar kasta idinku celcelinaya waa hadalkii ugu dambeeyey nolosha oo qorisku dhiib adigu waa tegaysaa qof walba raadka uu maanta dhigto berri waa la soo xasuusan doonaa hebel maalinkuu noolaa wuxuu ahaa haliyey wuxuu ahaa qof dadka isku soo dhaweeya wuxuu ahaa qof ummadda u naxariista ilaahay wuxuu yidhi sidaad idinku isugu deernaxdaan buu rabbina idinkugu naxariisan doonaa aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad kaalintiina buuxin doontaan aad baad ciyaaraha wasiir axmed maxamed minaan oo ku magac dheer leebo soo dhaweey wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا الدليل إبراهيم بعدمي إبراهيم waxaan ku faraxsanahay in aan nahay laba qof oo insha Allah isku fahmay shaqo diyaarna u ah sida Ibraahim sheegay inaan wax badan qabanno hadii la yiraahdo shaqo abuurkii koowaad waa hadda idin sheegay marka dadaalkaygu wuxuu yahay dadkeenu waxay u barteen accounti la barto oo wax la saxeexo laakiin sida Ibraahim uu yiri in 12 qof intay isku soo xirmaan 12 kaas boqol qof ay u shaqeyso 12 marka waxay noqonayaan waxa weeye waa maamulkii weeye marka fikirkaas sida ugu dhaqsiyaha badan lacagtu way taallaa ka faa'iideysta isku soo xirma xafiiska kaalaya shaqadii la wareega tan iyo caawana ku soo noqdo dad badan oo halabuur la jira insha Allah waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda in la arko inaga oo ku tartamayno Audio Jungle. Audio Jungle.